waxaan dadkor idin sheegay qisam ay qabsatay gaalkacyo markaan tagnay oo aanu markaan golaha deegaanka soo dhisnay ayaanu la dhaariyo ninkii garsooraha maxkamadda jooga baan dhaari dadka la soo doortay markaasuu wuxuu bilaabay inuu yiraahdo ma kugu wallaahiba ma kugu billaahiba laakiin wa kugu wallaahi ma kugu billaahi isma dhaariyo anagu dastuur baan leenahay dhaar baa ku taala dastuurkaas dadka lagu dhaariyo waxaan ku yiri war ku dhaari dastuurka dhaarta ku taala deeja ku taala akhriyo ku dhaari dadka sirku soo qaaday dhaartu dacwo akhriyo akhrin kari waay waana garsoore waxaan noqotay nin xildhibaan ila socdo inaan iraahdo adigu akhri isagoo gacantaas hadaari imagine cadaaladda noocaas iyo qof noocaas inuu joogo inuu garsoore ahaado diin ma ku dhaqmaynaa anigu I will say no waxaan maanta ina haysta waa wax dibadda ka yimid kan federaalka ka warwarin dibadda kan al-shabaab ee damal jadiidka ah ee diinta islaamka sheeganaya ee saacadii wacdiyay waxaan dhageysanaynba ka warwar baan ku oran lahaa anigu and I am against in Soomaaliya lagu dhaqo diinta mutaxal ee radical islamic sheeganaysa waa very sensitive question diinta ku dhaqanaa macnaha mugta mana rabo in lagu label gareeyo diinta ku soo horjeeda waxaan ku raacsanahay aniga saaxiibkay Faisal diintu horta iwana barana waay macnaha mugta diinta la barto marka diinta ma qabo aniga wadanka in lagu xukumo laakiin waxaan qabaa constitutionka aan qaadanayn inuusan diinta ku xadgudbin lagu bees gareeyo niman naga caqli badan Mareykan ayaa kala sooceen diinta iyo state there's a reason ay kala sooceen it's not joke ma naga caqli badan yihiin waa naga aqoon badan yihiin waa naga waay aragsan yihiin xireen baasha la kala sooco أنا مرة حان قبا مرة إن لك رسوعه